gabadha haddaa kala tagtaan oo calafkii uu soo dhammaado caruurtaada ha iloowin, ha ka tagin caruurta. waxaad arkaysaa qof oo markuu gabadhii uu furay, maalintii uu furay caruurtana ugu dambeysay, calaaqada dhan wuu jaray. haddii gabadhii aa furtay caruurtana ma la furaa? ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay walaa tansaw lfadla baynakum, yaa la iloowin fadliga iyo wanaagii iyo nolosha aad la soo qaadateen, wax badan aad la soo marteen, calafkaas ka soo dhammaaday. caruurta yaa la iloowin. waxaad arkaysaa qofku dhahay sheekhow aniga aabahay meel iguma ogeyn, abtiyaa isoo korsaday adeeradayda, markii aniga aan weynaaday oo 40 aan gaari wuxuu rabaa aabahay inuu amar isiiyo oo macnaha xukum isaaruu rabaa. ani marka waxaan dhahay aabahaaga mar kasta aabo waa xariiri. marka caruurta cugdiyaa la gelinin. haweenka waxaa laga rabaa adiyo ninkan haddaa isku dhacdaan wixii xumaato ah ilmaha ka ilaali dhagtooda. ilmahan hadday cugdada ay ku koraan beri aabbahoodana way ka tagayaan, adina waa kaa tagayaan. wixii adi oday idin dhex maray barnaamijyada oo xasaasiga ah ka ilaali. haddii la alla uu ku weydiiyo hooyo waqtiga soo dhammaaday aabbahan waa kala tagnay, qof fiican u ah, intaas uu ekay. marka waxaa la rabaa ikhwaani in oo haddii oo gabadha aa furtid caruurtaada waxbarashadooda, iskoolkooda, caafimaadkooda la soco. aday wax kuu tarayaan, diintooda ilaali ilmaha. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiis saxiix ah idaa maata ibna aadam inqataca camaluhu ilaa min 3. bani aadamka hadduu dhinto camalkiisa oo dhan wuu go-aya wuri nabiga calayhi salaatu wasalaam, ilaa 3 ma go-aan wuri: sadaqa jaariya, cilmi yuntafacu bihi, meesha aniga aan u socdo intu ay waladun saalixun yadcuu lahu. ay walad maha gabar ama wiil fiican. ilmaha tarbiyadooda adaa lagaa rabaa, ilmaha waxbarashadooda adaa lagaa rabaa. laakiin hooyadoodna waan kala tagnay, ilmihina waxba igama jiraan, anigaba haddaan guriga aan ka baxay caruur waxba igama jiraan haddaa dhahdid, waxaa laga yaabaa caruurtaas beri marka adig aad waayal aa noqotid inay irid ay kaaga tagaan oo jidka ay kaaga tagaan. marta waxaa la rabaa caruurta hala ilaaliyo. hadallada xanafta leh caruurta ka ilaaliya. hataa hadduu ku weydiiyo labadiinba waxaa la rabaa caruurta waxyaalaha dhagahooda ka ilaaliya. intaas ayaa xalqadan kusoo xidhayaa. sala allahu calaa sayidina muxamed.